fudiisoo dhan iimaan soomaaliyeedna ah intaan hadalkayga u galno hooso waxaan rabaa inaan taabto iimaanka wuxuu yidhi ma ku jiraanoo mataqaanaa reer islaaw iimaan waxaan kuu sheegaa reer islaaw markaan reer xamar soo degayni islaam cumar islaam mahadla dadkiina soo dhoweeyey inuu yihiin marka taas waxaad niidaada ku bishaaraysataa mataqaanaa in ay hormoodkii ay shangaani ay noo ahaayeen tan kale dhinacayga kalena waxaan ka maqlaayay mataqaanaa waceysle ma ku jiraan waceysle waxaa ku jira abasokor allah u naxariistay maanta wiilku adeerkiisa u yahay in la caleemo saaray mar iimaan waxaan kaa codsanayaa in taas aa ku raalli ahaatid shangaani wax ka maqan male odayaasha mataqaanaa maanta halkan fadhiya reer xamar oo 49 qabiil ah yaa iimaan waxaa dhacday in 9 qofood oo 4 xamar iyo 5 shangaani ay yihiin oo beentooda ay ahayd maanta halkan waxaa ka caddaynayaa anigoo cali cumar abuukar shaamo oo camuudi ah waxaan ka caddaynayaa in mataqaanaa meeshaan ay tahay 49 qabiil oo iyo wixii la jiro oo dhulka lagu duubay maanta alxamdulilah yacni mudulooda u dhan yaan halkan waxaa ka caddaynayaa in aan mataqaanaa dadkaas ay dulmanaayeen 25 sano inay dhiiggayna cabaayeen marka hadda ayaan haddaan banaadirna ay soo baraarugnay marka mudulood waxaan ka codsanaynaa inay garabka naga galaan ay meel kasta nala garaacaan sidii aan xaqayna u soo dhacsaneen haddaan banaadirnahay mudulood idinka naftiina banaadir ayaa tihiin banaadir ayaa ka mid tihiin yacni hal doonaan wada saarannahay marka ilaahay idinkiisa waxaan rajaynaynaa beledkayna inuu ilaahay ka dhigo beledal aamiin annagana quluubtayna inuu isku soo jeediyo waddankaynana mataqaanaa ilaahay inuu nabad noo keeno hadalkayga waxba kuma badinayo dadkaas oo hadda aniga aan 9 sheegay ninkii guddoomiye u ahaa waddanka waa ka cararay buwamuudda ayaa la dhihi jiray marka nin oo meesha oo maqaarsaar ah oo cumar dacas la yidhaaho oo been noogu adeeganayay alxaasil maanta waa ka hor nimid waxaana idiin sheegaynaa haddaan jiifnay waa soo kacnay ummaddan maanta reer xamar banaadir inaan wax u qabano oo naftayna u horno oo meel kasta aan garaacno iimaan adigana waxaan rabnaa inaad garabka naga geshid wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu